bangiga iyo wixii alla ku gadataa waxyaalihii daawanayo waxyaalihii kuula yaabka badnaa ama aad ku farxad geliyay ama maskaxda kaa weynaysiiya markay kugu dhaceen reaction wixii aad samaysay ama aad muhato inaad samayso waxaad igu soo qortaa xagga hoose igu soo qor waan ka hadli doonaa insha allah waxaana sameynaynaa haddii loo yidhaahdo barnaamijyo taxanaanta kadib kobcinta suugaanta cusub qof allaala qofkii dhalinyaro ee Soomaaliya gabadh iyo wiilba ee wax curiya suugaanta sameeya si ay noqotaba dhan walba suugaanta hata wax ka sameeya haddii uu doonayo hibadiisa inuu soo bandhigo waa bil Ramadaan waxaanu sameynaynaa inaan xitaa live ku soo gelino Facebook YouTube iyo insha Allah page-ka si aad ula wadaagto bulshada kale hibadaada haddii loo yiraahdo hal yar baa idin la wadaagaya waagii ugu horeysay waxaan ii sheegayaa maanta ay soo martay lacag madaxii wareerisay oo xogaa kuus ah wixii igu dhacay waagii jigjiga dhowr jeer ba kale lagu sameeyay waxa lagu xusay Gimboti marka hadda ka hor baa waxaan tababaray dhalinyaro Gimboti loo tababarayay oo marka waxa wasiirka waxbarashadana ahaa Cabdiraxmaan Gurey oo dhalinyarta waxa laga soo ururiyay iskoolada jigjiga iskoolada laga soo ururiyay marka waxa la tababarayay sida sarkisto kale marka macallimiin badan oo waxa tababarayay Cabdiraxmaan Gurey qayb ku tababarayay macallimiintiisu qayb qolada sarkista isla rogtaa oo ay champion iyo saaxiibadii Al-Shakuriyana si kale ayaguna tababarayeen anigana waxa la igu weerar dhaatada baro dhaqanka si hadhow ay u soo bandhigaan ciyaar dhaqameedka qaybtaasan marka qaatay marka ayada mushaarkayga anigu aad buu yaraa waxa qaadan jiray waxaan u leeyahay 250 bir 300 buu ahaa wax noocaas oo aad u yar marka taro xilli ma ahayd ma xasuusto sanadkii naftiisa ku ahaa laakiin marka waa fanka markaas ku cusbaabay marka waxa meeshii ugu infaad gareey qoladii sarkista saaxiibada yaaba ugu infaad gareey inaan dhalinyarta xagga baro marka abalka la qaadanayo ba abal lacagta la qaadanayo waxay lacag ku saxoga dhowr neef oo xoolaha goynaysa hay markaan dhamaynay hawshii waanu saacanay anagii wiilashii waxaanu tagnay lacagta abalka baa la doonay maray way dhamaatay hawshii aanu baxno oo waxaanu tagnay xag markaan tagnay waxa la yidhi lacag 7,000 oo bir ah 7,000 oo bir 7,000 oo bir baa la soo dhiibay 7,000 oo bir markii la dhiibay anigu madax ay weynaaday 7,000 oo bir oo isku xidhan isla xilligii maskaxda bini'aadamku waa wax baas saas isu gadiday waxa ay gashay waliba lacagtu fara badana maxaad ku qabataa talow waxaan isiri gurigan dawladda hoose dhan ay degan tahay talow ma iibsataa maskaxdaydii markaas aanay iska daakan uu yar yahay xog waan fiicmay waa soo baxay markaas aanay bangiga iyo wixii alla ku gadataa marka aad bay ugu badnay lacagta markaas soo martay run ahaantii markii si loo eego hadda markii la joogo ma badna laakiin marka sarafka sidoo ahaa lacagtu sida Itoobiya birku sida ahayd lacagtu sida ay u adkayd marka ayada ah iyo say wax u goynaysay iyo intay ahayd markay soo martay nin 300 oo bir qaadanaya oo 7,000 oo bir loo dhiibay adigu maskaxda kalkulaad gareeb maxaad samayn lahayd dhowr habeen baana seexanin oo uu soo hayo islaaxato maxaad ku qabataa oo hadda seexato ama ay kala didaa tagtaa إلا قاتل يما هم إلا حضايا يمي حاجات تانية ما أما يو كلا ضداي وكلا عرفتها وصلا مركز سوى هاي دور هبيل يا ويقول دلاني ولا عاد وصلت له بحكي سوى سباشة يا أظن مركي تنبه هو إسكتك هذيك وحي كولا يابك بدنا ما الله يابط يكسمره بالحق وصلنا وخر سي نلا شرقري هذيك مركا الله وحفل حياه عاد wax kala la kulanto سيد maxaa dareetaa jawaabta xagga hoose igu soo qor ta kale hadii aad doonaysaa su'aalaha inaad ka soo jawaabo maalin kasta oo jamca insha Allah hadii loo yiraahdo waa ka soo jawaabaya wixii su'aalaha ee qabtaan
hoos igu soo qora ayadana haddii loo yidhaahdo qof walba su-aashuu doonayo inuu weydiiyo xagga hoos igu soo qora insha allah waxaan rajeynayaa inaan kaaga soo jawaabo anigoo sidoo kale u hadlaya